xukuumadda Soomaaliland ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeeray dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inay diiwaan gelinayso hantida maguurtada ah ee dawladda qaybna ay ka tahay Soomaaliland. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo arrintaasi lagaga jawaabayo ayaa u dhignaa sidan: xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wax qiimo ah agteeda kama laha hadallada afka baarkiisa ah ee dawladda magacyaalka ah ee Soomaaliya kumarin habaabinayso ummadeeda tabaalaysan, waxaana dhaqan ka noqotay inay sheegato Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah dal madax bannaan oo ay kala baxeen rubuc qarni ka hor. War-saxaafadeedkaasi waxaa kaloo lagu yidhi dawladda Muqdisho ee ay ka dultaliso tiknikada AMISOM waxaa la yaab noqotay inay shalay ku dhawaaqday inay diiwaan gelinayso hantida maguurtada ah ee dalkeeda oo ay sheegtay inay ku jirto Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo ay uga dan leeyihiin inay iskaga dijiyaan culaysyada iyo cadhada shacbiga Soomaaliya kaga soo horjeedaan haraashka ay toddobaadkii hore ku fasaxday xukuumaddaasi qaybo ka mid ah shidaalkii dalka ku jiray, iyadoo horena u jirtay inay hadiyad u bixisay soohdimbiyoodkii dalkooda iyo khayraadkii ku jiray. Gabagabadii waxaa war-saxaafadeedkaasi lagu yidhi sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliya inay u soo noqoto runta ka jirta geeska Afrika oo ay ka waantowdo laablakaca ay ku haweensanayso inay farageliso Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay 5 madaxweyne si dimuqraadiyad oo nabdoon xilalkii iskugu wareejiyeen. War-saxaafadeedkaasi waxaa ku saxeexnaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo, wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna afhayeenka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Axmed Nuur Ciise Maxamed, Bulsha TV, Hargeysa.